بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا الله سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الله يدين سيو وحن جوجنا حفيز كني نيو أمريكان ريسورس أو برنامج كان أنكو قبني mental health أنكو قبنيني إن شاء الله تنوى حلقة دي لبعض وحنو هاد لدون إن شاء الله تعالى ديتيل نسين دون ميش ناقصي ود دون ورالكينا شيخ خرسيد الله حفظيه إن شاء الله تعالى وحنا جينا إنا سفيع عود فايدي سنو جردا mental health اللي راه مجرتا سمجرتو تاسان كهذاني سفيع عنو شيخ هذا هتلي وحيابها كيانو لكن سؤال سويدين وحي هديه كل عضا مركز سؤال شاسان ربنا مانت إنا كجوابنا حلقة هذا شيخ خرسيد خير الله كسي جردان ما ورتي ما قارب بس يكون عضا ومسلمين تيكون عضا ما حروتي يكون عضا مددوا إيج ملاذا هي جندر ملاذا هي دين ملاذا هي تاسر بنا أوغانا مانتنا أوغانو بسم الله والحمد لله والسلام على سيدنا بعد دكتور أحمد والسؤال رنتي مهمة وأنا سؤال عن سلاية هي جوابته وحين نقول سامد ما لبدن دويسة هذا ضدك الأهنو وحين كل عضا قالك كلية أما ضدك حنحن كلية أما ضدك فقراء كلية وحال جيابا إن أيسي كورد له يبكوا بالشدة كهية وحاربنا أمريكا إن الشيخنا ساينس كو مرخاتي كيه دين تين صوبنا أي أتكين نسا إن حنونا ده أمريكا كل عامة mental illness موضوع عن مانتا وكل قف والبه qof walba gaal ha ahaado muslim ha ahaado yuhuud ha ahaado oday iyo caruur madaxweyne iyo shacab sheekh iyo caamo kulli way ku wada dhacdaa hal qodob baan raacinaya dadka iimaankoodu adag yahay ee fahamsan quraanka ee adkaarta ku xiran waxay iyagu haystaan marka tooliski ay isaga difaaci lahaayeen marka waxa islaamku uusan ogoleen waxa weeye xanuunka dhimirka ku dhaca qof walba ku dhaca laakiin depression ko kale ma keeni karo despair quusasho macni oo qofku marka isdilay la taqnatu min rahmatillahi wa meesha marka roolka diintu taas weey qofku wuxuu fahamsan yahay noloshii oo imtixaan waxaan wax walba ku dhici karaa qof walba ku dhici karaa taas marka waxaan rabaa inaan ka sii afeefto waxaan rabaa marka iyuu ku dhaca waxaan leeyahay hay'adda caafimaadka adduunka WHO World Health Organization daraasadeedan maalin oo akhrinay oo leedahay runtii معني waxay tiri this generation is the most depressed generation in the history jiilka maanta saaxada taagan waa daraasad waxaan ogaanay inay yihiin jiilka ugu badan ee xanuunada dhimirka ku dhaco ee la tacaalay the depression ka marka la dhaw buufis inuu ku noqon karo umaleynaa Soomaaligeena ma aragtay waa qayb kamid ah fiiri marka waxa arkaysaa marka lajnadii u weyneed ee caafimaadka adduunka waxay leedahay jiilka maanta saaxada taagan waxaan ogaanay inuu yahay jiilka xanuunada dhimirka ay ugu badan yihiin taas waa number 1 number 2 waxaan rabaa inaan dhahno qaybo uu ku sii badan yahay jirta markaan dhahno qof walba ku dhici kara waxa hadda la sheegaa runtii dhalinyarada college-ka aadaysa wadankan waxay keenaan marka waxyaabaha keen waxay dhahaan deyntan ay qaataan ee lagu leeyahay dhalinyaradu ku badan yahay yiraahdeen waliba haddaan daraasada xusuusto waxay dhaheen dadka college-ka aaday dhaheen dhowr marka khaanadii kala galiyeen iyagii bay hoos u sii kala qaadan waxay dhaheen wuxuu aad ugu sii badan yahay ardayda college-ka ee immigrant community-ga way sii galiyeen saas markay dhaheen Dr. Ahmed waxaan arkay daraasad ay soo saartay ISPU Islamic Social Policy oo runtii dhahaysa waxaan aragnay dhaheen in dadka muslimiinta ay ugu sii badan yihiin ardayda muslimiinta ah khaasatan gabdhaha bay dhaheen ay ugu sii badan yihiin dadka runtii depression waxaan la tacaalay sabab bay marka ku saleeyeen waxay dhaheen waxay la wadaagaan dadka kale la sheer gareeyaan immigrant nimadii macni waa dad soo galay soo hadii immigrant ku badan yahay muslimiintana qayb immigrant ka mid ay noqonayaan lambar 2 gabdhaha waxay yiraahdeen gabdhaha wadankan maadaama uu jiro dareen oo ka dhan ah muslimiinta islamophobia waxa la yiraahdaa mar walba maadaama gabdhaha waa xijaab xiray Dr. Ahmed lix jirteen alxamdulillah khimaar xiran waxay dhaheen mar walba kamerada saaran iyaga zoom ka saaran harassment waxyaabaha la midka gacan bidixinta waxay noqotay marka gabadhii oo immigrant ah oo haddana ma aragtay xijaabkeedii islamophobia waxaan in waxyaabo badan keenaan bulshadeena waxa u dheersaa la socota Dr. Ahmed burburka qoyska oo adigu aad uga hadasho waxaas marka la isu keeno marka waxay sheegeen inay ku badan yihiin dadka dhalinyarada diinta haddaan soo noqono marka waxaan arkaynaa دكتور أحمد وقتها النبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلهي وحير فبيضت عيناه من الحزن
معني ماشي لفتي waxaan ka arkaynaa fiiri nabi kamid ah nabiyada ilaahay wuxuu yiri walwal wa fiiri xanuunka ilaahay u tilmaamaya ma aha xanuun jirki ku dhaca ma waa xanuun nafsiyan macni ku dhacay weey meesha waxa kale Dr. Ahmed aan ka arkaynaa in uu relationship ka dhaxeeyo xanuunka maanka ku dhaca iyo ka jirka because issue wuxuu u beelay ama issue ay soo noqotay maskaxdii wax soo gal sidoo kale nabigeena sallallahu alayhi wasallam markay badatay islamophobia maka ka jiray dadka waxay ka sheegeen ilaahay wuxuu tilmaamay xanuunka guduhu la tacaali waa ka yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun macni marka meeshaas waxa kan rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam leeyahay waxa ay dadku ka sheegayaan waan ognahay xanuunka ku hayso marka taas waxaaba la mida ardaydeena maanta iskuulka aadaysa gabdhaheena xijaaban waxaan laga sheegayo islamophobia laga sheegayo waa inaan ogaano waxa qalbigooda ku jira inuu marka diinta markaan hoos u galno runtii aan arkayna xanuunada maanka ku dhaca in ay ku dhacaan qof kasta aan sabab baa jirta Sheikh Ahmed Khair Allah ku siiyo kulli xalaqaadka ducooyinka u badeen adkaartan Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni sabab baa jirta loo soo dajiyay fiir marka islaamku wuu aqoonsaday wuu recognize gareeyay in lagu imtixaami karo ham iyo huzn iyo waxa soo dhan daraasaadkii kalena saasi u sheegay marka taas waxay noo cadeynaysaa in runtii qof walba uu ku dhici karo su'aashan waa si fiican anaga dharjisiyo ku dhici kara waxa u fahamnay marka qof kastuna waxa meesha ka baxay marka mentality-ga dhehayso jiradan muslimiin kuma dhacdo sax ka baxayso tan oo waxa ku jiradan waa dhalinyaro kuma dhacdo way ka baxaysaa dumar kaliya kuma dhacdo jiradan marka waxa waaye qof yar qof weyn ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo macnaheedu waxa qof walba wuxuu haystaa jaanis inay ku dhacdo hadii asbaabtii keenaysi walwalkan iyo murugtan iyo fikir baan jaanis wuxuu leeyahay inay ku dhacdo u keenaysa marka jazaahullah khair Allah khair siiyo jirada qofka muslimka waxa rabaa inaan muslimka qofka muslimka naftigiisa waa la imtixaama hada koora markay corona socotay waxa maqnay kaliya la dhahayo kal muslimiinta corona kuma dhacdo maxaa jira calaash ilaaha taahiri maxaadiiday qofka jiro wax kasto jiro ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku imtixaan bal qofka muslimka ba aad loogu imtixaamayo rasuul sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa oo kamid ah Sa'd ibn Abi Waqqas 10 mubashirin bil janna ay kamid ahaayeen rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay inuu ka dhici doono taa'uun inuu ka dhici doono Amwaas magaalo leeyahay dadka badi ku dhintay saxaabi ahaayeen subhanallah jiradii ku dhacday ay ku dhinteen Abu Ubayda inta Muaad bin Jabal dhalinyaro ahaa ku dhintay marka waxaas oo waxay ku tusaysaa marka jiro ma jirto marka waxa hadalka sheekha oo sheeg baan rabina si xoojiyo oo qofka muslimka inay ku dhacdo waa mu'arrad li kulli shay qofka muslim ibn aadam waa rasuul xadiid kale ku dhaay qofka muslimka ma yusibuhu hatta qodax duraysi ajru ku ilaa haduu ku sabro haduu ku jab marka macnaheeda waxa waaye waa qofkan waa qof kasta ku dhacayso muslim iyo gaal ma kala la sheekhana ilmaha yaryarka ma ku dhacdaa taas hadii ku dhacdo maxaa ku ogaan kara ilmaha yaryarka Sheikh Ahmed waa qodob muhiim ah caruurta yaryarka baan ku dhacdaa runtii waxaan arkaynaa maanta hadii aad fiiriso annaga markaan yaryareen ayeeyo iyo awoowo waxay nooga sheekeyn jireen sheekooyin ah waxaa jiri jiray libaax waa xusuustaa waa soo ag fariisan jirnay runtii waxaan jecelnay ahayd maanta waqtigan aan ku jirno Dr. Ahmed qurbaha waxyaabaha naga maqan waxa kamid ah doorkii ayeyda iyo awooga guriga ma jiro bahalkaas wuxuu u noqday ilmaha waxa la dhaho pacifier sax oo ma arti gacanta ku haystaan taas waxay keentay marka wax walba adduunka ku jira intay ka fiirinayaan waxa arkaysaa ilmihii daqiiqada kadib uu soo istaagay wuxuu leeyahay I'm bored waa 7 jir ku dhayso annaga markaan 8 9 sano jirnay guriga ma aqoon bored wax walba waxay seen jirnay banaanka marka naloo saaro iyagii waxa waaye ciidii wax walba waxay ku leeyihiin I am bored marka runtii waxa arkaysaa haddii waalidku uusan hoos u fiirin xiriirka ka dhaxeeya xanuunka dhimirka mental illness iyo teknolojiyadda waxaa marka iman karo khatar fara badan waxaa maanta jira bugaag loo qoray wadankan oo yiraahdo Prozac Nation waa ummad ku nool Kenya waay waxa arkaysaa marka wuxuu ku badan yahay hadda lagu leeyahay ilmihi yaraa liana drugs kan iyo waxan la isticmaalay iyo waxan oo dhan wuxuu ku badan yahay daayirtu ku badan yahay hadaa fiirso gymka oo kale daad meel ku shaqeeyaan ma waqtiga Dr. Ahmed hadii in music dhageysaneen oo wax isku mashquulineen ma ordi karaan u fiirso oo kan wax dhagaha weyn oo jiro waa saas waxa meesha ugu jiro waa music waxa arkaysaa qofkii marka naftiisa gooni lama noqon karo naftiisa gooni lama noqon karo markuu soconay music baa ugu jiro waxa arkaysaa hadda xitaa markii homework sameeyay waxba ugu jira dhalinyarada runtii marka maanta waa sababta WHO World Health Organization ay u leedahay
da'yarta maanta waa jiilka ugu badnaa ee waxyaabahan stresska iyo depressionka ku jira waa aragtaan u malayn Dr. Axmed inay ku leeyihiin I am bored, I am stressed marka taas waxaa ka cad caruurtana inuu ku dhaco bal inuu ku badan yahay aaminsanahay خير الله كسيو إن شاء الله خير الله كسيو وحان ربنا مركينا وقالنا next حلقة إن شاء الله سيدي لو قرتا قف كان إنه جردا صهاية سيدي لو قرتا على موي ما جرت لو قرتا ما سيلو وقان كراي تاس إن شاء الله تعالى سؤال شيء حكي جواب دونا حلقة هذا صوت خير الله هدين سي جزاكم الله خير بارك الله في الشغل صوت خير الله كسيو جزاك الله كسير الله اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته